موضوع أي سهرة وموضوع وقت بدنه باهن لكن وسوق كوبية كتلاقل كي يقول كروحه أنا وحكي هذا حالة أي كسوجيهين جناح بونتلان the state of enterprise in بونتلان لكن هذا وحالة هاي ما دام مرة بدن كقيب قلي مشروعان وعن قيب كها هيئة كشقيس ودن كإنجليز كا والمشروع عن كهذا مدن مدح وين سهرة شيكتي مشروعان ومشروع سنة والبا أسبوع صدق هذا نوفمبر لو قد بلد عالم كا ويرتهي بقعد كتال العالم كوان لو قد بلدقين مشروعان لبه هدف بوليه هي هدف كواد وحوي إن لا أبوره لقن قناعسنا وحكو أبور ممالين إيا لبا إيا أسبوع يبل معها وإن دتك اللي تعليسية قلبي قودنا اللي قرده إن تعلادان قناعسيقا قفكم مركو تعلاد قناعسيقا وحكو لنا يهلو وحب بلابا يا دراسد وحب بلابا يا برشو وحكو صدع يسديرشو إلا لقى يابا آخر كإنو النقضه قف أساسا شركة وحوين ترتا سمعة هان شقة أبورهان دخلي هان ومداسي وطن كاس أسباب تقدم بيس وأسبوع لو دير قلينيو ودولته ميزانية دوغو قوندينيان ومدي ودن لوغو جهينيان وحيسلك كويسا درينكا iyo fahanka ahmiyada uu ganacsigu leeyahay caalamka maanta waxa la gaaray zaman ganacsi zaman umamku ku tartamayaan ganacsi dawladuhu maanta waxay ogaadeen horumarkooda mustaqbal inuu ku xiran yahay tirada dadka ee ku fikiraysa ganacsiga ee urin karta ganacsi fiican ummadii soo saarta dad dhalinyaro ah ama jiil dhalinyaro ah oo leh halabuur urin kara ganacsi cusub mustaqbalka meel bay ku leedahay ummadii dhalinyaradeeda ama dadkeedu urin waayaan ganacsina mujtamaca mustaqbalka meel kuma leh marka fikirku wuxuu ahaa in ummad walbaaba ay dhiirigeliso ganacsiga waxaa jira daraasado badan oo dhinac socda ee soo bandhigaan midka ugu xiisaha badan waa mid la dhaho index global entrepreneurship index oo lagu fiirinayo sida caalamku ugu kala horeeyo halabuurka ganacsiga inta badan shanta wadan ugu horeeya halabuurka ganacsiga waa wadamada ugu horumarsan adduunka way hadda waxa la ogaaday in xiriir xoogan uu ka dhaxeeyo yani correlation inuu ka dhaxeeyo heerka horumar ee wadan iyo tirada dadka ee halabuurka ganacsi marka wadan walba wuxuu ku fikirayaa inuu sanad walba 2 point 3 point 4 point sare u kaco ilaa uu gaaro heer dadkoodu ay urin karaan soo saari karaan ganacsiyo abuura shaqooyin ummadda soo geliya dakhli sarana u qaado sumcadda wadanka marka waa tartan caalamku ugu jiro in ay dadkooda baraan ganacsiga inta badan asbuucan waxa lagu qabtaa xarumaha cilmiga ayaa lagu qabtaa ama ha noqoto dugsi dhexe dugsi sare jaamacado waxa loo qabtaa publica istaadiimiyaasha iyo wadooyinka iyo meel kasta ayaa lagu soo bandhigaa literature waa asbuuc si cilmiya looga hadlo mawduucan وأسبوع تيثية دبيتة كسرة أي نقدان موضوعان لتراجع كوب بدنا ولا بشكرية أي نقدان أسبوعان شورنا هذا ودمدا كسر بحا أردن لما بيت أفر بيت شن بيت بيحويه بيان موضوعان وجدد وحويه قف كستا وأيسن مسكحة سكوتشرين جناح سنة كان إن سنة قدمه وحيابها وكوها منيه ومسكحة سكوتشر أي كم من نقطة جناحه مركب مدح وينه وأسبوع ربحانتي عالم ككل أهمية وين جلوبالين الله أقول صدي وحنا سلايا هي براروج أي نكبر أرجني ووزارة الجناحسية أي الله إنستوشن ذا كلا يكبر أرجين وحموتشنا يا واستانوا يهاي إننا مستقبل في علينا هاي وايو أنت عن هيو تاريخ أنا ومؤرخ ما هي لكن تاريخ وانا خريا دقا مجا بنتلان وحلال أسوسيات جرينش روادها الجناحسي أو حتى أثرت قديم كاه لقاها لبنتلان ودن وحموتشنا سائين إنه هانشني ضد جناحسي كهبون يعني كهر أثرت لقاها له هذا هذا كيف فرعنا هذا لقاها له waxay muujinaysaa ganacsi u dhaxayn jiray masaaridii hore iyo Soomaalida Greek hore waxa la hayaa asar badan oo muujinaysa xiriir u dhaxayn jiray Soomaalida iyo Greek Romaanki Shiiniski Bershiyaanki inta yani waxaynu ahayn ummad leh magac iyo taariikheed magac ganacsi leh raadad ganacsi leh yani dadka wax qora qaarkood mu'arikhiinta Khalid Ali Guul warsamo oo kale ninka la dhahayo Professor Gandhi oo kale nin la Professor Spanish oo kale saddexdaba waxay ku tageen adduunka wax bad ka gudba waxa ugu horeeyay Soomaali waana asbaabta keenaysa inuu noqono dad ku fiican ganacsiga aqoon weyn baa loo lahaa cilmi falaga waxa la yaqaan marinada dabaylaha waxa aad loo yaqaan badda taas waxay keentay Soomaalidii hore inay noqoto dad adduunka oo dhan hal meel isugu keenay buuga la dhaho Barbaros oo ah buuga gudda weyn oo hadda laga qoray Soomaaliya oo la qoray taariikhdan miilaadiga goorteed 40 waa nin maray xeeraha Soomaaliya ka soo bilaabay Eritrea ilaa Kenya maray yani marsooyinka uu tagay Soomaaliya buuga Khalid Ali Guul akhriya hirarkii taariikhda wuxuu isku dayay maabkiisa inuu dul dhigo maabka Soomaaliya أولog iyo daamo zamankaas waxay ahaayeen oo ninka Greega ah yiri dakadii ugu weynada uu arko waxa imaan jiray doomo fara badan buu yiri waxa ka bixi jiray caravan kun rati oo sida badeecad sida ayaa ka bixi jiray oo ilaa Central Africa gaari jiray
يعني waxaynu ahayn dad ku fiican ganacsiga waxaynu ku naalay boqcad istaraatiijiya waxaynu lahayn productiyo adduunka ciriirku ah oo ay ka mid ahayd beeyada oo kale ay ka mid ahayd midiga oo kale waa inuu soo laabto dhaqankii waxaan isleeyahay asbuucan oo kalena wuxuu muujinayaa in aynu qabno rajaa inuu soo laabto asbuuci marka waan u hambalyeynayaa ILO iyo sidra iyo wasaaradda ganacsiga waxaana ku faraxsanahay inaan qayb ka ahaado 2001 ilaa 2010 waxaan ka ahaa institution ingiriiska sanad walba ka qayb qaata mashruucan fuliya literature-kiisa daabaca seminaaro qabta marka maanta Garowe madaxweyne anigu buurahan Garowe u muuqdaan ku dhashay gamboolna waa ka baxay marka in Garowe lagu qabto maanta farxad bay noo leedahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.